السلام عليكم صاحبيال meel kasta waa dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaarihii warka gudoomiye Kamal Daariga soo qaadan doona maxaa laga leeyahay Premier League imika kadib markii Arsenal ay wali awoodi weysay inay ku soo badiyaan gagada Anfield maxaa laga yiri City miya qaadayso Realka ma Arsenal baa qaadaysa maanta waa waxay ahayd maalin la wada sugayay oo ay ciyaarayeen Liverpool iyo Arsenal waa kulanka ayaantan soo digayni dadka u digayn lahaa wariya kulankii baa dhici doona wax weeyaan markii Arsenal waa la gufiyay oo laba gool iyagoo ku hormaray ayaa laba laga daba keenay hatta laga badin rabay Arsenal waxa weeyaan meeshaas waa ku xumaysay Arsenal waxa weeyaan shaqa yani niman shaqara uma keen ya daacadii nin laba ku hormaray ee labada keen la yiri xataa rigoor lagu qasaariyay ee xataa laba gool xilli dambe badbaad iyagii ala garaaci rabay nimankii laba ku hormaray iyaga la garaaci rabay marka Arsenal hadiiba ay caawa la hoydeen hal dhibic oo Anfield ka qaateen nasiib ay leeyihiin iska aamus marka nimanku waxa weeyaan waa shaqa marabtiin daacadii ya inaad maalinta meesha ku kufteen waxa weeyaan wanaag fiican u muujinayso walow still waliba hogaan Realku ay tahaysaan laakiin nin laba ku hormaray ee laga daba keenay waxa weeyaan waa Liverpool wax la ciyaaraysa laakiin koox Real u socota maalinta noocayo waa koox Realku dabeecad waxa lagu qaaraa maalinta noocan markay laba ku hormaraan ciyaartu inay guuleystaan iyagii gacan ku bad noqday mid kale waxaad arkaysaa Liverpool waxa rajo fiican siiyay goolka koowaad ee qaybta hore yimaaday ayaa rajo fiican siiyay wax weeyaan gool raysi bilaabeen ya xitaa waxa weeyaan Arsenal waad arkaysaa qaybtii labaad waxay u muuqdeen niman shaqo diyaar u ahayn waxay u muuqdeen qaab difaaceed la galiyay waxaad arkaysaa daacadii hadii Arsenal si sareexo caadi u ciyaarayaan inaan wax laga qaban karin bal fiiri iyagoo xataa maanta difaac ku urursan halka maray Arsenal Bruno soo qaato Martinelli uu soo qaato warkaas waa khatar sax warkaas iska micli kare cunugaas waa xawaareynaya warnin la hor istaagi kara ma berigu yaraa Martinelli buu kala buurin ninkan u soo fiirsaday ninkan magaalka waa qabsan doona warmina marka halka maray Arsenal soo qaato Bruno waxa weeyaan halis bay gelin nimanka Liverpool marka laakiin daacadii Liverpool in waxay u qalmeen dhamaadka ciyaartay guuleystaan Liverpool say u ciyaartay dhamaadkii qaybta hore iyo qaybta dambe oo dhan inaba caadi maan u ahayn Arsenal waxay markay Liverpool ay hurdaysay inay dilaan ugu yaraan laba marsiiniyeen inay dilaan hatta waxay qaybta labaad inay xataa ciyaartu dilaan bay ahayd laakiin iyagii abaa culays la kulmay mid kale bedelada uu Arteta sameeyay waxa weeyaan Kowyar mid kale dhahayay uu keenayay Arteta wiilkaas waxa laga soo qaaday horta Talyaaniga laga soo qaaday waa nin fiican waa nin ron laakiin waxa la isma dhahay ninka ayaa la keenay waa qorshe uu rabay isagu waxay ahayd inuu xoogaa difaac si adkeeyo ayuu runtii ya mid kale Odegaard hataa isagu hataa lama filaan bay ku noqotay in la saaro Odegaard oo kala dhaxdina taabata ma ahayn just waa saxsanaa bedelkiisa marka laakiin yaa qay maalintii meel lagu wado wax weeyaan wixii dhanbaad ku dheelaysaayo calay xal Arsenal ya iyagii ba halis galay maalinka marka wax weeyaan ninko ku fogeys waxa la ri waa ninko farxadiisa Manchester farxadeeda way ariga kan in Arsenal baraje gashay goolku waxa bilaabay Martinelli waxa xijiyay Jesus Mohamed baa keenay mid Mohamed Salah lagu soo naaka war Mohamed Salah laacib sana Mohamed laacib sana Mohamed suu u ciyaaray ciyaartoy islaamka waajibkooda inay gutaan baa caawinaysa Benzema hadalkaasi wuxuu mataqaana inaan diinteeda gooska ku qabsado oo aan aqeedadeeda difaaco oo aan ilaashto Bruno son u furin yani waxyaabaha waaweynka diinteena inaan ilaaliyo oo aan soom markay soonka tahay oo u furin si loo badiyo ciyaaraha ayaa ay saaciid u leeyahay ciyaarta dambeeyno maalin Benzema arkay ninkii hadirgada dhalay buu ahaa ciyaar isku xiga hatta kalaas ku jirto Mohamed suu ciyaar maanta waa la arkay ya kadibna Firmino soo gal markuu soo galay Firmino waa dhalin kara kan halis waa inuu jecel oo kuwa kan waa isagoo hatta no look goal buu dhalin jiray soo isku dhalin jiray soo ku dhalin jiray iyaga ya marka mid kale Mohamed Salah markii daacadii hoorada yani horta kolab hatta waa jeestay walow isiri markii dambe hoorada waa la dhaliyay laakiin la yiri hoorada ma la dhalin laakiin markuu Mohamed qaadanay waxaan islaam Mohamed maanta ashmaan wallahi daacadii bilaa baan ku dhaaranayay walaal firi waxaan maanta ashmaan arlada Mohamed maanta geeda ma dhalin doono ya yani anigu ka shidaal qaadanaya bareesharka saaray Mohamed iyo maalinta kooxda la ciyaarayay koox Real u socota kooxda Real ku socota waxa ku dareemaysaa yani inta badan la iyagu waxa guud jira bal fiiri goolkaas geeska mar Mohamed Salah argoor gami gees mar lu yiri macnaa fiiri dhamaadka ciyaarta Arsenal waa la dili kari gabi ahaanba ma la dili macnaa gool hayu laba fursad ay badbaadiyay inay Arsenal wili horyaalkan rajo fiican ka leedahay geedkan qaadi karto waxa ku cadeynaysa hadiiba Arsenal xilligaas la dili waayay taas waxay ku cadeynaysa niman meel u socdo leeyihiin ya Arsenal hadii ay ka badbaad labadaas fursad ugu dambeeyay Ramsdale uu diiday meel cid u socdaan still laakiin Manchester kulay gacanta ku haysata Arsenal iyagu waxa weeyaan ciyaartoodu waa loo faysteen doona Etihad baa lagu ciyaaraya runtii marka sidii usbuuca way adkaatay kuwana way adkaadeen runtii iminku hadda 6 dhibcood baa labada dhinac u dhaxaysa Manchester kulna u baaqiya labadooduna waxay isla ciyaarayaan 6 Abriil macna meel ma jiro kulankaas markay Arsenal soo ciyaarto kooxda West Ham ya Manchester Leicester in la soo ciyaarto Manchester Arsenal biga isla ciyaarayba marka waxa weeyaan ya
waraa jiri doono marka City waan arki doona hadday tiraahdo Arsenal ay kulanka garaacdo kulanka u baaqin ay badiso waan arki doona kolay iyo haddii ay Arsenal mid diido balse Arsenal still waa ku socotaa in kaarta ku aadaneed inay tan ilaa waqtigeeda ku soo badin gagada Anfield oo ay ugu dambeysay Arteta beriga ciyaartoy ahaa Lewandowski iyo gasoorla ayaana maalinka goolash dhaliyo marka halkaas ku habaaranta Arsenal sanadii ugu dambeeyay 14 sano ay ku soo badiyeen Old Trafford bay ku soo badiyeen Chelsea garoonkeeda ku badiyeen kan Tottenham way ku badiyeen waxaasna isku soo jeer laakiin midaan isku kor qaadi waayeen runtii markay kaarto 12 sano ay socotaa Martinelli inaba caadi ma 14 gool buu xagan karay Realka waa Brazilianka Europe ka ciyaaray goolash ugu badan xagan dhaliya xataa ka badan Neymar ilaa iyo Vinicius Junior ma jiro yani macnaha kama gool badan ninkan yani nin ka gool badan oo Brazil ma jiro ciyaareedkan 5 Euro bal wali runtii waliba ninkan October isaga goolka ciyaarta furay haddana maalinka isaga fur runtii war ninka ma shaqo wayaan waliba Mohamed Salah 8 gool buu dhaliyay 7 ciyaar oo Arsenal ku rimaad waa teamku aad ugu jecel yahay waliba Mohamed Salah Arsenal waxa uu ka dhaliyay iminku lagu leeyahay runtii 9 gool baa la leeyahay guud ahaan marka la fiiriyo yani 7 ciyaar Arsenal 8 kale la guud ahaan Mohamed Salah wuxuu ka dhaliyay 9 gool waa in ka badan daragba oo kuwan jeclaan jiray 8 ka dhaliyay daragba ogahay dhowr iyo 7 uu gaarsiiyay Arsenal tartamo kala duwan laakiin Premier League marka la eego darag 8 uu ka dhaliyay kuwa kan laakiin Mohamed 9 uu ka dhaliyay kuwa ka darag bay ayaa dhibi jiray nimankan xataa heer markii dambe Arsene Wenger uu yiri mar dambe isoo Galatasaray ka tirsan Arsenal score yimaad macna hadana uu ka dhali macna markaas Wenger isoo Arsenal uu beriga wuxuu yiri mataqaan ninkan ilaa heelka laga geenaayo mooyaan nama dhaafir haduu xataa duq noqdo haduu naga hor yimaado waa naga dhalinay uu macna marka waa ka iyadoo Klopp ilaa had intuu Arsenal macallinka Liverpool yahay intuu Arsenal ka hor imaanay Premier League ka hor imaanay gagadiisa wali guul dar kaga ma soo gaarin kuwa kaayo maruu 3-3 la galay mar 3 ku dhuftay 4-5-3 ku dhuftay mar kale 4 ku dhuftay maanta 2-2 ah marka in kaartu waxa sii badiyay Bob Firmino maalinko ya wali xaga dambe uu baxaya nimankan maanta in record ku badbaadiyay Mohamed Salah waxaad arkaysaa rigoor khasaarinay inaysan Liverpool been u socon oo Arsenal in laga badi karin waxaad arkaysaa Mohamed rigooradii khaluujina macna Mohamed Salah ilaa Mars laga soo gaaray sanadkan mooyaane Mohamed Salah ma dhici jirin xataa rigoor uu tuurinay banaan geeska marxata haddana waxa dhacaysa labada jeer rigoor ugu dambe uu tuuray targetka inuu luminayo yaa uu gees marsiinayo ya rigoorooyinka hadda banaanku marsiinaya wixii intaan ka horeeyay wiliga maanu horsiin jirin laakiin wixii Mars loo soo gaarayba ninka uu dhibay kala wuxuu horta kala buu ka jeestay rigooradu ma daawanin wuxuu yiri maanta balaaya jiri karta ya laakiin markuu soo jeesto xuslaa bahash waa gashay laakiin waxa la yiri waariye bahash ma galin waxay markii ugu horeysay Arsenal ciyaar 2 gool Premier League ay ku hormarto Anfield idoo lagu ciyaarayo ya tan iyo September waqtimadii markaas ay ahayd markii ugu dambeysay Arsenal ka soo badiyaan bay ahayd ya waa Arsenal beriga ciyaarayo midda kale ugu weyn wixii maanta meesha ka dhaxayd 19 shoot ayaa Arsenal lagu tuuray oo laga tuuray dilinta ganaaxa kooxda Liverpool waa shoodadkii ugu badnaa ee Arsenal Premier League ay wajahayso tan iyo markii daatada la bilaabay ruux xogaha tan 3-4 yani Arsenal waa la galay daacadii idinka gacmaha iska dhunkooda hadaan idinka badin ciday ya 19 shoot ayaa laga dhex tuuray dilinta ganaaxa kooxda kubadda cagta Arsenal waliba Mohamed Salah tiro badan buu meesha ka tuuray runtii taa wata waliba waxa leeyahay marka la eego targetyada uu wajahay goolhayaha Arsenal goolhayo walba oo wajaha fursadaha noocayo kala shududka noocayo kala marka Liverpool la ciyaarta maanta waa laga dhali karay lagu leeyahay ninka waliba xilli dambe laba fursad uu ninka badbaadiyay oo ninkan Arsenal nin jiiday weyn sikano wuxuu ku fadhiyay 4 milyan ku fadhiyay ciyaartoy Arsenal laga yar ku soo heshiiyaan ee shaqaysanaya xitaa Jesus malaha Arsenal waxa looga badin xilli dambe maxay yeelay kulan uu Jesus gool laliyay marna ma dhicin kooxdiisa in laga badiyo isaga rekoorka James Milner wata oo soo fiirso Jesus kulan Premier League gool ka dhaliyay ma arkays kulankaas kooxdiisa laga badiyay ma arkays marka waxa weeyaan maalin kale oo Arsenal laga badin bay noqotay Man City kooxdu isagu soo ciyaaray maanta Anfield wuxuu ku dhaliyay markiis ugu horeeyay gool buu ku dhaliyay runtii Firmino kaaga daran marka uu jecel yahay wuxuu ka dhaliyay Arsenal 10 gool oo Premier League oo xataa hal gool penalty aan ku jirin buu ka dhaliyay runtii ya marka waa ka bariyahan garsoorayaashii calawadayaasha loo soo jeestay dadkan Mexico waxa ka dhacday garsoore inta laga xariisiyay ayuu jirib ku dhuftay ciyaartooyga qaybtiisa Brentford ka dhuftay ciyaartooygu waa dhacay garsoore dhowr 10 ciyaar baa la ganaaxay hadda bal fiiri maanta waxa dhacday Anne Robinson ayaa la dooday calamadaha ciyaartii Arsenal Liverpool waxa la arkay calamadii ninka xusul ku dhufanay baa la arkay hadda waxa la xiriirka way baarayaan baa leeyahay marka ayaantan ciidihi xataa way isxamililaayeen garsoorka iyo marka garsoorayaashii calamadayaashii loo qalqaaliyo bahasha marka ciyaartooyga yaa marka hore kar la siin jiray iyaga waxay bilaabeen u qalqaaliyaan waa dhacdo isdabayaal ka hor Mexican maalmood inta ka dhacdayo marka caaw waxa weeyaan cidii Arsenal madaxa xanuunaya ya kokolaatka ku noqonayaan iyo ciyaaraha jadwalka ay tirinayaan midin caawiya jadwalka in soo dhiga saas wahay tiriya dhaha Arsenal qalbidaha iska ah jireen iyagoo saan ka sii xunay oo idoo 20 dhibcood laga horay waxay dhigi jireen ya ma hadan kaas badino 20 laga horeeya ay dhigi jireen waa qaadi karnaa marka iyagoo hadda hoggaan hay maxaa maleynay waa kan Liverpool waan West Ham ka qabtamina waas
Southampton jawa Man City وانا ندبل لك بل وفيرنينا بل عاوة عود عديه كقولات ترك عاوة كنا قريان بل واقع جدول كين عاوة حسابتهم سماية إسلا حسابتهم عدي ما أنتنا تكفتان الذي كمربين يا لكن ستيل ولي وده كامل إنسان ولو نيوكو إسليهن كلهم باقي الصوب إذن أي أورتو أي واحد مركض ولا بديك ولا قراعي كرا لو حسليه كلهم باقي الصوب بديا كده بيجي قراعة فرق الجولش كذا قبته يا أروح وابا بقوي محيط هاي بريمير ليج قبل ملك اللي تشيله معنا تاوتا